Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kasta aad joogtaan aad baan idin salaamay. Waqti dheer maanan is arag, isku soo noqosho wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inay qof walbo caafimaad qabto, nabad qabto, qoyskaaga iyo dadka aad jeceshahay iyo dadka ku dhowba inaad wada nabad qabtaan. Intaas kadib maanta waxaan idin wadaa buuggan la yiraahdo Gumeysto Lagula Dood. Waxaa buuggan turjumay sidoo kale baaridiisa iyo maaragtay fikirkiisa iyo ra'yigiisa ku darsaday Ustaad Cabdisaciid Cabdi Ismaaciil. Xaqiiqatan waa buuggii ugu horreeyay aan qoraagan aan ka akhrinayo aniga ahaanteyda. Buugaa kaloo qoray waa maqlay laakiin weli ma aanan akhrin maadaama yacni meeshan aan joogno aysan saas u badnayn inay soo gaaraan, laakiin buuggan wuuna soo gaaray nasiib wanaag. Waa buug turjumid ah oo asalka buugga la turjumayo waxaa la yiraahdaa magaciisa Discourse on Colonialism. Waxaa qoray nin la yiraahdo Yemeseser, laakiin qoraagaani turjumid kaliya kuma uusan sameyn ee buugga wuxuu ku darsaday fikirkiisa iyo ra'yigiisa iyo runtii cilmi baaris mise baaris dheeraada oo asaga uu sameeyay. Waa buug saayid qurux u ah, saayid cajab u ah. Waxaa laga yaabaa buugga qaybihiisa hore waxyaabaha aad ugu tagayso iyo qaybaha dambe waxyaabaha aad ugu tagayso inay kala duwan yihiin. Marka laba midba waa sameyn kartaa. Haddaad rabto inaad buugga mise qoraaga fikirkiisa aad aragto, qoraaga buuggan turjumay fikirkiisa aad aragto, waad ka bilaabi kartaa buugga bilowgiisa hore waa ka bilaabi kartaa. Laakiin haddaad rabto kaliya turjumaada essayga uu qoray Yemeseser oo la yiraahdo Discourse on Colonialism, haddaad rabto turjumaadaas bis inaad akhrido page-ka 120 aad ka bilaabayso. Wixii xagga ka xigo waa turjumaada essaygaas, yacni buug ma aha laakiin waa turjumaada essaygaas. Waxa kaloo 120 xagga kasii xigane waa fikirka iyo sidoo kale baarista dheeraadka ee uu sameeyay turjumaha buuggaani. Marka waxaan kugu sheegayaa waxay tahay yacni inaadan ku kala wareerin. Intaas kadib xogaha ugu muhiimsan yacni waxa ugu muhiimsan ee buuggan uu xambaarsan yahay min bilow ilaa min dhammaad. Qaybta turjumaada iyo qaybta qoraaga maaragtay Cabdisaciid labadaba waa akhriyay, laakiin waxa ugu muhiimsan oo asalka ugu muhiimsan oo aan idin la wadaagi karo adinka waa dhowr qodob oo cayiman ilaa yacni 4 ilaa 5 qodob oo cayiman. Qodobka koowaad wuxuu yahay horto maxaa gumeysta maxaasan gumeysta ahayn iyo sidoo kale xiriirka ka dhaxeeya gumeysiga iyo ilbaxnimada oo ah qodobka labaad. Iyo qodobka saddexaad oo aan dhihi karno saameynta gumeysiga uu ku leeyahay ilbaxnimada iyo sidoo kale maaragtay munaafaqnimada gumeystayaasha mise munaafaqnimada ay sameynayaan qolyaha reer galbeedka ah iyo sidoo kale saameynta gumeysiga uu ku leeyahay maaragtay cunsuriyadda mise soo ifbaxa cunsuriyadda. Halahaasa yacni qodobada ugu muhiimsan ee buuggan uu xambaarsan yahay ay tahay. Marka koowaad aan u guda galno qaybta ee horto gumeysigu maxaa waaye. Gumeysiga waxaa laga yaabaa inay qolobo si u qeexdo, dabcan waa naqaanaa sida dadku u kala qeexaan, laakiin qoraagan iyo qoraaga maaragtay hore oo buugga lahayba asalkiisu waxay ku deedayaan yacni in gumeysigu uu yahay kaliya damac mise inuu yahay dano wax lagu raadsanayo, wax lagu boobayo, dano ganacsi lagu sameynayo mise baayac mushtar lagu sameynayo. Markii la joojiyay gumeysigana hadafka gumeysiga loo joojiyayna inaysan ahayn arrin bini'aadanimo oo ay ahayd kaliya arrintii dhaqaale mise arrintii ganacsi oo looga dan lahaa oo sidii la rabo u imaadiday mise faa'iidada ganacsi oo laga rabo oo kasoo bixi diiday darteed ayaa loo joojiyay, laakiin looma joojin arrin bini'aadanimo. Marka gumeysigu waa wax damac iyo boob iyo ku salaysan in laga bato mise la maamulo mise xoog loo maamulo dad iyo kaleeto. Inta badan hababka uu gumeysigu isticmaalana waa xoog iyo rabshado, yacni inuu isku dayo jirdil iyo xadgudubyo baahsan oo bini'aadantinimada ka baxsan yacni inay adeegsadaan. Sidoo kalena yacni gumeysiga markaan dhahayno gumeysi waa wax akhlaaqda ka soo horjeedo oo maaragtay akhlaaqda hoos u dhac ku ah oo hab dhaqanka anshaxa ku salaysan saayid aga soo horjeedo. Wax qiil loo raadsana ma ahan oo qof gumeysanaya mise qof
qof adoonsanaya kaliya waa inuu qofkaasi sida xayawaankii u arko mise shay inuu u arko waana wax aan akhlaaq ku salaysan yani inaad bini'aadan kale isku daydid inaad labadaada lugood aad hoos keentid oo aad ku dul istaagtid wax akhlaaqda ka baxsan. marka gumaysiga waxaa laga yaabaa inay dadka gumaystayaasha ku doodaan Afrika jahli badan ka jira mise baahiya ka jirta mise dadku cawaani ahaayeen marka waxaan isku dayeynaa inaan u arrimino oo ilbaxnimo aan siino inay ku doodaan laga yaabaa laakiin marnaba gumaysigu wax wacyigelina ma ahayn faafin diin ma ahayn sidoo kalena naf lama badbaadinaynin wax wanaagsan mise aqoonna lama baahinaynin samafalna maysan ahayn oo arrimo bini'aadanimo gumaysigu halkaas umuusan tagin caawina muusan qaybinaynin dhaqaatiir muusan halkaas u sameeyay yani arrin bini'aadanimo muusan sameynin hadaf kale waxyaabaha dhibaatooyinka jira sida kalitalisnimo iyo dhibaato halkaas ka jirtane muusan isku dayin inuu soo dabargooyo oo hadafkiisu taas muusan ahayn. taas waxaaba kaaga sii daran dadka xagga joogay oo la gumaysanayay ha lagu tilmaamo inaysan ilbax ahayn hana lagu tilmaamo inaysan aqoon haysan laakiin dadkii aqoonta isku tilmaamay mase ilbaxnimada isku tilmaamay ayaa dadka kale waxay ula dhaqmayeen si bini'aadanimada ka baxsan. inta badan waxaa laga yaabaa jaahilnimada iyo naxariis darrada in la isku lifaaqo laakiin qolyahaas ayagoo ilbaxnimo ayagoo sheeganaya aqoon ayay naxariis darro meeshii ugu dambeysay ay dadkaasi kula dhaqmayeen. gumaysigu marnaba ma noqonayo wada wax lagu faafinayo mise wada gargaar mise wada samafal waxaasoo dhan muusan ahayn sidan soo sheegnay kaliya boob iyo wuxuu ahaa in dadkaas la bilaqaysto oo dadkaas la dhibaateeyo. marka waxaa laga yaabaa dadka qaar dhahaan gumaysigu wuxuu ahaa wado ilbaxnimada lagu ballaarinay oo inay isku dayaan in ilbaxnimada iyo gumaysiga isla xiriiriyaan laakiin ilbaxnimada iyo gumaysiga wax xiriir kama dhaxeyn oo gumaystayaashu dhaqamada ay wateen waxaa kamid in ayagu dhaqankooda iyo wax yarka ay yaqaanaan in dadka kale ku qasbaan oo dadka la gumaysanayana ay ula dhaqmaan sidii xitaa dadaan magac lahayn dadaan dhaqan lahayn dadaan diin lahayn oo ayagu ay markay u tagaan boqolo ay rabaan inay gumaystaan horay waxay ka barayeen dhaqamadooda iyo mabaadiidooda. marka ilbaxnimo aan mar aqbalayn dhaqamada kale ilbaxnimo aan aqbalayn fikrada kale ilbaxnimo aan aqbalayn kala duwanaanta ilbaxnimo laguma tilmaami karo. gumaysiguna kaliya waxaan ku tilmaami karnaa ilbaxnimada uu watay mise qoraagan wuxuu ku tilmaamay inay ahayd ilbaxnimo jiran inay ahayd ilbaxnimo rabshada iyo dulmiga iyo dhiig miirashada u ololeeyahayda inay ahayd ilbaxnimo inay ahayd cadaalad iyo sinaan iyo ixtiraamka kaliya la tixgaliyo marka ayagu u baahan yihiin marka dadka kale u baahan yihiin aan diiradda aan la saarin. marka halkaas waxaa ka arkaysaa munaafaqnimo weyn maanta waxaa laga yaabaa inay ku doodaan oo ay dhahaan xuquuqda aadanaha inay ka hadlaan sinaanta waxyaabahaas inay ka hadlaan bulshada inay waxaas ka hadlaan laakiin wixii ayagu ay sameynayeen iyo rafaadka ayagu ay sameynayeen markaas ay sameynayeen ayagoo weli ka hadlaya xaquuq bini'aadanimo ay Afrika iyo Asia waxyaabahaas ka sameynayeen bini'aadanimada ka baxsan oo marka micnaha waxay tahay buugga waxaan soo xasuustay oo ahaay beerta xayawaanka oo dhahay xayawaanada dhan waa sameeyeen laakiin kuwa qaar ka sareeya kuwa kale ka sinaan badan kuwa kale markuu dhahay ayaga marka qolyahan reer galbeedka isdiidada ay qabeen waxaa waaye ayagoo u doodaya markaas xaquuq aadane iyo ayagoo ka hadlayay sinaan ay Afrikana dhibkaas ku sameynayeen oo marka waxaa xaggaas ka fahmi karta in hadafku ahaa oo ay dhahayaan dadka qaar looguma talagelin sinaan dadka qaarna looguma talagelin cadaalad dadka qaarna looguma talagelin xaquuq bini'aadanimo oo qofka cadaanka ah oo Yurubiyaanka ah inuu ka sinaan badan yahay ka cadaalad uga cadaalada uga xaq leeyahay sidoo kale xaquuqda aadanaha uga xaq leeyahay kuwa aan Yurubta ahayn ayaa xaggaas ka fahmaysa. marka waxa dhihi karnaa inay gumaysigaas markaas la waday inuu qayb ka qaatay faafinta mise horumarinta cunsuriyadda maanta taagan cunsuriyadan la dhahayo ninka cad iyo ninka madow Afrika mase waa la nacbaysiiyey nigarnimadooda madownimadooda waa la nacbaysiiyey waxaa looga dhigay inay tahay wax aan marnaba la qaadan karin oo ay tahay wax liita ay tahay wax dadka normalka mase dadka caadiga ixtiraam
ka mudan aysan lahaa karin kalar noocaasa. Waana sababta hadda maanta markaa fiirisid wadankeena markaa fiirisid qof waxaa arkay ilaahay kalar asala siiyey oo kalar madooba siiyey laakiin haddana kiimika mise waxyaabo ma aragta ay ku soo saareen oo dadkan qolyaha cadaanka soo saareen isku dhaqaya isku cadeynaya isku ekeysiiyaya kalarka dadka. Yacni dhibta jirtaa waxay tahay in qolobo si quruxda u aragtaa. Sheeko waxaa soo xasuustay ninkii ma aqaana ninku ahaa laakiin saayida u jeclaa fikirkaas. Wuxuu yiri gabaru saayid u jeclanaa marka waxaa la yiri warni hebelow adiga gabartan maxaasas dhan ugu jecesha qurux ma walaha. Markaasuu dhaha adiga horto labadeeda indhood ku eeg u dhah. Marka labadeeda indhood ku eegtida arkay inay soo quruxayn iyo inay qurux tahay. Marka xaggaas waxa ka fahmay yacni quruxda dhan oo lagu sheegayo qoloba si u taqaanaa. Oo quruxda waxa anaga Soomaali u naqaano iyo adduunku wuxuu qurux u yaqaano kale isku mid ma aha. Marka qofka Yurubiinka oo quruxda u yaqaano cadaan saayida qurux u yaqaanan inaan anagu ku daysano oo aan quruxdii aan cadaanka ku halbeegno yacni ma ahan. oo waa in anaga aan quruxdeena aan ku halbeegna yacni waxa anaga aan raaxaadka ugu dareemayno mise waxa aan ma aragtay anagu aan aqbalsanaanteena mise waxa anaga dhaqankeena ku salaysan iyo waxa ma aragtay anaga biology-geena ku salaysan waa inaan quruxda ma aragtay ku dabaqno. Laakiin haddaad tiraa quruxda waxaan ku dabaqa wax biology-gaaga ka baxsan macnaha waxay tahay dad kale wax biology-gooda uu yahay aad ma aragtay qurux u aragta inaa maanta cadaanka ah kalarkooda adna qurux u aqooto macnaha yacni halbeegaaga quruxnimada waxaa ku salaynaysaa qaab dhismeed dad kale ma ahan qaab dhismeedka adigu aad leedahay. Marka waxyaabahan cunsuriyada oo in kalar la isku cunsuriyeeyo shakilka la isku cunsuriyeeyo la yiraahdo qofkaani wuu san weeyahay qofkaani kaasuu leh yacni qolyahaasi way ka soo bilaabatay sababtoo ah ilaa hadda ay ku xitaa markay hadda waxa fiirisaa markii dagaalada Ukraine hadda dhacayeen wixii ugu badnaa meelaha la wada waxay ahaayeen ay dhahayeen ayagu waa murugo wiil cad indha buluga leh inuu ma aragtay gaajo meeshaas la fadhiyo inay dhibaatadaas ku dhacayso yacni wiilka Afrikaanka ah oo ma aragtay rafaadkaas ku dhacayo muhiim uma ahan ayaga oo waxay xaggaas fikirkaas oo kale waxaa ka aaminaysaa in qofka Afrikaanka oo madowga oo ma aragtay indhaha qaxwada leh uu mudan yahay inuu ma aragtay rafaadkaas iyo dhibaatadaas inuu maro. Marka taas markii laga soo tago yacni cunsuriyada in qofka xitaa Afrikaanka ah oo asagu isleedo qofka Afrikaanka oo asagu is aqbali waayo qofka Afrikaanka oo kalarkiisa iyo oo asagu is yeeso yacni waxyaabaha fidiyay yacni gumeysiga kamid ah gumeystaha kamid ah yacni fikradahaas uu gumeysigu abuuranay inay dadku asalka ayagu iska shakiyeen oo ayagu isku malayeen inaysan ba qof asal ahayn ayaa ka dhalatay oo markuu qofku dareemo qof asal ahayn wuxuu hoos joogo u noqonayaa mise wuxuu isku duleynaya qolyaha kale oo u arko in ay ma aragtay ka mudan yihiin ayuu isku duleynaya. Sidoo kale yacni gumeysiga marna faa'iido uma ahan waxtarna uma ahan kuwii la gumeystay iyo kuwii wax la gumeysanayaba oo qofka wax gumeystay xitaa ciqaab la'aan ma uusan ma aragtay wax ku gumeysan oo rafaadkeedu maray oo natiijadii ka dhalata mase dhaxalka gumeysiga ka dhashana wuu wada saameeyay kuwii la gumeystay iyo kuwii wax gumeysanayay oo kuwan xitaa ma aragtay hadda fikradaha naaziga iyo fashisamka iyo waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen fikir ka dhashay mise fikir oo mase reflectionka wuxuu ahaa waxyaabihii ilbaxnimada ayagu ay u arkayeen oo ay sameynayeen. Cunsuriyada la cunsuriyeynayo dadka madowga ah mise ma aragtay dadka Asianka sameynayay ayaga ma aragtay markii u dambeysay ayaga isku sameeyay ayaga ma aragtay isku rafaashay oo isku baabaashay. Marka labada dhinacba kan wax gumeystay iyo midkii la gumeystayba yacni waxba kama faa'iideen yacni ilbaxnimadii ku salaysnayd gumeysiga. Marka gumeysigu kaliya wuxuu ahaay waxyeelid iyo sidoo kale walxayn inuu dadka ka dhigo shay camal loola dhaqmo. Qolyaha qaar laga yaabaa inay gumeysaha u doodaan oo ay dhahaan gumeysigu wuxuu dhisay kan oo dhisay waxaan oo dhisay hadduu gumeysiga Afrika soo gaari lahayn Afrika saan ma noqoteen waxyaabahaas. Laakiin fikradahaas oo dhan
waa fikrado asagoo gumaysigu ku abuuray mise uu u sameeyay dadkaasi uu dadka gumaystayaashan ay isku dayayaan inay yacni damiirkooda ay ku dabiibaan. sababta markuu qofku dhibaato geysto dambiilanimo dareema, marka si dambiilanimadaas aysan u dareemin ayay waxay samaysteen waxyaabahaas maaragtay xaqiijinta justificationkaas ay samaysteen oo ay dhahayaan yacni arrintan iyo arrintaanan wadanin. arrinta layaabka la sii lahaa waxay tahay xitaa markii hadda Afrika la gumaysanayay alaabo badan waxyaabo badan Afrika laga soo qaado waxaa jira maanta ku xardhan madxafyada wadamadan yeesho ma rabaan inay u celshaan sababta waxay sii aaminsan yihiinba in waxyaabahan haddii Afrika la geeyo ay halaabayaan oo Afrikaba aysan ilaahay shakirin alaabtooda oo ay tahay in loo ilaaliyo. maantana shalay gumaysi waxaa jira yacni iska caabin la iska caabi karo isku dayaya inuu meeshan kusoo duulaamo qabsado, laakiin maanta waxaa jira gumaysi kale oo kii ka dadbanaa jiro oo gumaysiga cusub la yiraahdaa jiro. gumaysiga cusub marka waa inaa dadka fikirka ay lahaayeen asal ahaanta laga bedelo oo fikir kale lagu shubo. waa in dadka ma aragtay laga dhigo dad la adeegsani karo, dad luuqadooda in loo caayo, dadka in yacni wax loo baro mise loo jiheeyo qaab ku salaysan qolyahaas wax gumaysanaysa oo gumaysiga cusub wadata. arrintaana maanta Soomaaliya saayida loogu dabaqi karaa. qof kasto mase maanta dadka qaar Soomaaliya jooga xilalka haayo yani sida xitaa qoraygu ku sheegay buugisa wuxuu yiri waa iska caadi yiri inaa maqasho yiri hebel dowlad heblaaya wadata. يعني dowlad heblaaya wadata micnaheedu waa dowladaas arrimaheedu ka talina wax dowladaas ka soo horjeeda lagama yaabo inuu Soomaaliya ka dhex fuliyo wax dowladaas ma aragtay kasto faa'iido u ahna Soomaaliya wuxuu isku dayaa inuu ku reexo xitaa hadii arintaas aysan Soomaaliya faa'iido u lahayn. marka gumaysiga dadban ayaa ma aragtay ka daran gumaysigii ma aragtay tooska ah sababtoo gumaysiga dadban qaab la iskaga caawiyo oo ma aragtay iska caabin ma balahan bulshada inay ku soo baraarugto in gumaysi dadban lagu haayana way ma aragtay way adag tahay. sidoo kale wuxuu ku soo gabangabiyay yacni asagoo la hadlaya qolyaha la gumaysta asagoo la hadlaya in ay ma aragtay diidaan dhibaataynta cadaalad darrada iyo sidoo kale waxyaabahan ka imaaday dhaxalka masalaga sidii gumaysuhu uu ka tagay yacni inay diidaan waxaan la yiraahdo faquuqa inay diidaan iyo waxyaabahan ma aragtay ku salaysan aabanimada ayaga ma aragtay hoos la geeyahay sida caruurtii loola dhaqmayo oo dhaqankan ma aragtay galbeedka uu wato waxaa adu caruur noqo aniga aaba camal ku noqonayo aniga ku korinayo arintaas aniga ku korinayo inay aqbalaan oo ay diidaan yacni ay noqdaan dad ayagu wax qabsan kara dad soo jeeda oo ma aragtay amaba si isku duubniya ugu hor imaanaya waxaan ma aragtay operationka ay sameynayaan qolyahane iyo sidoo kale inay aqbalaan oo ay qaataan dhaqankooda iyo aqoonsigooda iyo dhaxalkooda oo marnaba aysan u arkin dhaxalkooda iyo aqoonsigooda aysan u arkin wax dhibaato mise wax u hooseeya oo wax kasta ay ka bilaabaan naf ixtiraamkooda iyo qaadashada sharaftooda yacni waxyaabaha dhaqankooda inay wax sharaf u arkaan inay qaataan. sidoo kale yacni waa laga yaabaa in ma aragtay gumaysiga la diido gumaysiga tooska in la diido inay wax caadi tahay mise isbedel wax keeni kara inay kacdoon ay tahay laakiin midda asalka oo loo baahan yahay waxay tahay yacni nidaamka siyaasadeed mise qaab dhismeedka bulsheed ee uu abuuray gumaysiga oo weli socda oo ku salaysan ka faa'iideysiga iyo sinaan la'aanta ku salaysan inay ka taqasusaan oo ay meesha ka tagaan. sidoo kale wuxuu ku sii daray yacni in baxnimada asalka ah inay tahay midda bini'aadanimada ku salaysan, midda akhlaaqda ku salaysan, midda wax isdhaafsiga ku salaysan, midda is-ixtiraamka ku salaysan, midda isla jaanqaadka ku salaysan, laakiin aan ku salaysnayn kala faa'iideysi yacni kala faa'iideysi maahan ka faa'iideysi dheeraad ah iyo sidoo kale aan ku salaysnayn caburin aanan ku salaysnayn awood sheegasho. marka halahaas runtii ugu muhiimsaneed oo buugani ku jiro haddaadan aqrina kula tali lahaa inaad aqrisid. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.